اروي الحديث ولازم أهله فهم الناجون نصا صريحا للرسول نمي. سامت منابرهم واحمل محابرهم والزم أكابرهم في كل مزدحم. اسلك منارهم والزم شعارهم واحطط رحالك إن تنزل بسوحهم. هم العدول لحمل العلم كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إلهي فضلي وحين إن شاء الله تعالى aynu maanta halkan ka bilaabaynaa iyadoo taariikhdu ay tahay 22-kii bishii rajab 1439 tirsiga islaamka, kaasoo waafaqsan 8 bishii afraad 2018 miilaadiga. kitaabkan aynu bilaabaynaa in sha allahu tacaala magaciisa la yihahdo aladab اlmufrad lilimaam اlbukhaari raximah اllahu tacaala. kitaabkani runtii waa kitaab ka hadlaya ama madmuunkiisu uu yahay bayaan iyo caddayn la caddaynayo aadaabta wanaagsan ee loo baahan yahay qofka muslimkaa inuu ku sifaysnaado, iyo digis la ysaga digayo akhlaaqda ama aadaabta aan fiicnayn ee laga yaabo in dadka qaarkood ay la yimaadaan. طabcan waxaa la ka socon jiray muwaطa malik bni anas raximah اllah, oo aan dhammaan darsigaas oo ahaa darsi ku baxa af carabi, codsi in badan yimid oo dadka cumaadta masaajidkan masjid الصaalixiya musalliintiisa ka mida, oo ah darsi af soomaali ah, iyadoo ay jiraan runtii duruus badan af soomaali ku baxa oo magaalada masaajidadeeda kala duwan ka socda, haddana jeclaystay in wakhtigan la geliyo darsi af soomaali ku baxaya, isagoo kii hore u socon jiray muwaطa malik bni anas oo arday gaara loogu talagalay uu waxa weeyaan waddadiisii iyo sidiisii uu ahaan doono in sha allahu tacaala. kitaabka waxaynu u dooray waa kitaab ka warramaya aadaabta qofka muslimkaa looga baahan yahay inuu ku sifoobo. adabkuna waxa weeye huwa maa yaxsulu lilnafsi min alakhlaaqi اlxasana wاlculuumi اlmuktasaba. waa waxa qofku uu helayo ama uu ku sifaysnaanayo ee naftiisu ay ku sifaysnaanayso akhlaaqda wanaagsan iyo culuumta iyo aqoonta la kasbado ee wanaagsan. taas ayaa aadaab la yidhaahdaa. waxaa kaloo la yidhaahdaa hiya alkhisaalu alxamiida, khasladaha wanaagsan. asalkeeduna aadaabtu wuxuu u noqonayaa cuntada la isugu yeedhay ma'dubada la yidhaahdo ama ma'aadibada la yidhaahdo, kulanka lagu kulmo ayaa waxay loo yaqaanaa ma'duba. marka waxay tilmaameen culammada lugawiyiinta ahi aadaabta waxaa sidaa loogu magacaabay oo xaggaa looga soo dhambalay maadaama dadka cuquushoodu ay fiican tahay ee aanay kharibmin, ay ku kulansan yihiin aadaabtan iyo akhlaaqdani inay mid wanaagsan tahay. sidaas ayaa adab ama loogu magacaabay, jamceeduna aadaab uu yahay. alimaam albukhaari raximah اllahu tacaala waa imaam haniyun can اtacriif ah, waa imaam aan u baahnayn in badan tarjamadiisa hoos loogu daadego, waana mashhuur oo waxa weeyaan wax cusub oo lagu soo kordhinayaa ma jirto tarjamadiisa. waa moxamed ibn ismaaciil ibn ibraahim ibn اlmugiira aljucfi mawlaahu abu cabdillaah raximah اllah,
ومحمد بن إسماعيل مقع أيو لها محمد أبيهين وإسماعيل يهي قبيلك الجعف ليادنا والله تيريي حقا ولها أيا لوغو تيريي وحودا سيكوني وحودا سيبقولي أفريا سقاشنكي تاريخ دا هجرية وحانو من تيلما بقولي اللحية كنتوكي وإمام مشهورا وحانو كشهر وبي أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل كتاب كوصي هذا بضن marka kitaabka alle laga yimaado axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam kitaabka ugu sixada badan ee ugu wanaagsan ee ugu awooda badan xagga axaadiista kitaabkaas ayaa sheekhu alifay oo aljaamicu saxiix ama saxiixu lbukhaari marbaka loo yaqaano kitaabkaas ayuu sheekhaasi caan ku noqday oo ah afdalu kutubihi kutubtiisa kitaabka ugu fadliga badan ee ugu wanaagsan cumrigiisa iyo juhdigiisana uu ku bixiyey kutub kalena uu leeyahay way ka mid yihiin kan maanta ina hor yaalla oo ah aladab almufrad kitaabkan uu ka mid yahay khalqu afcaal alcibaad baa ka mida kutubtiisa juzء alqira'a khalf alimaam baa ka mida iyo kutub kale oo uu imaamku leeyahay raximah اllahu tacaala kitaabkan aladab almufrad tasmiyada noocaasa axyaanana waxaa lagu soo koobaa kitaabu aladab marka lafdiga almufrad waa wasfun lilkitaab axyaanan wuxuu yimaadaa waana sida loo badinaya inuu imaamku ku magacaabay imaam albukhaari kitaabu aladab inuu ku magacaabay laakiin culammadii dambe ay ku dareen kelmadda almufrad marka almufrad adabka uma aha wasfi iyo qayd uma aha ee kitaabka ayay wasfi u tahay macnuhuna marka waxa weeye kitaabu aladab kitaabkii almufrad ee goonida loo saaray kitaabkii goonida loo saaray waxaa goonida loogu saarayna wuxuu leeyahay sheikhu kitaabkiisa aynu sheegnay jaamicu saxiix kutubta uu koobsaday waxaa ka mida kitaabu aladab baa ka mida marka si loo kala sooco ayaa waxaa lagu daray lafdiga almufrad oo waxa weeye waa kii goonida loo soocay oo lagugu baraarujinayo lagu leeyahay kitaabu adabkani ma aha kii jaamicu saxiixa ku dhex jiray ee waa mid gooniya uu alifay oo sidiisa u alifay weeyaan sidaas ayaa waxa weeye marka kutub baa timaada wasfi la socdo qaydka oo dadka qaarkood laga yaaba inay ku khaldamaan oo qaydka ay moodaan inuu leeyahay shayga dambe ee mudaaf ilayhiga sida مثلا كتاب السنن الكبير للإمام البيهقي وكذلك كتاب الدعوات الكبير marka kabiirkaasi kitaabka ayay wasfi iyo qeexid u tahay dacawaadka iyo waxa weeye sunanka uma aha marka waqtiyada qaarkood baa waxaa dhacda in inta kitaabka laga tago labada kale la isku idaafeeyo oo macnaha saxaynu ka soo baxo ala kulli xaal waa tanbiih kitaabkani kitaabu aladab waa sida loo badinay inuu bukhaari ku magacaabay ama sida uu caanka ku yahay kitaabu aladab almufrad kitaabkani saynu sheegnay wuxuu ka warramayaa aadaabta ka sugnaatay nebiga calayhi salaatu wasalaam ee uu tilmaamay loo baahay qofka muslimkaa inuu ku sifoobo kitaabku markaa wuxuu ka kooban yahay 644 cinwaan ama baab ayuu ka kooban yahay iyo 1322 xadiis ama ahar intaasuu ka kooban yahay الشheekh ناصر الدين الألباني رحimه الlahu taعaalى ayaa wuxuu alifay ama kitaabkan uu go-aansaday in uu ikhtiصaariyo xukunkana uu kala sooco oo uu ikhtiصaariyo wuxuu sameeyey asaaniiddii buu ka gooyey kitaabka asalkiisu asaaniid buu leeyahay oo bukhaari ciddii axaadiistan uu sheegayo ciddii uu ka qaatay ciddaasi cidday ka sii qaadatay ilaa nebiga laga gaarayo salى الlahu عalيه wasalam sidaasay asaaniid u leedahay marka asaaniidda
وجرى الإمام البخاري رحمه الله تعالى وحكالو سيميين وكلا صاعي وحي أنصحي وحي عن أنصحين ما دام كتابك أدب المفرد وككوب أحاديثتي سوأيتاي قار سغن والنبي كسغن عليه الصلاة والسلام هي قارا كسغنين أيو كلا صاعي وقوني وصاري انت النبي كسغنين عليه الصلاة والسلام مركا عملك ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى وحو النقضي أبوابتنا إلى النقضان شن بقولية كومية اللحدن باب أحاديثتنا النقضان سقال بقولية صدح يسقاشا لكن ماشا وحا كبحي تقريبا حق أحاديثتا وحا كبحي صدح بقولية سقال لباتن حديث أو ضعيف لكن هو كتابك بخاري اللي الأدب المفرد وحو صدي أفر ميلود ميل إلى تاي أحاديث أو السقنين ضعيفة انت كلنا يتاي أحاديث سقن وحين مركا إن شاء الله تعالى شرحي دونا وإن يسكوا دونا هديها ليلاده وإنت السقن النبي كسقناتي عليه الصلاة والسلام والبانو بحيي صحيح الأدب المفرد ودين عنه كيف اختصاري وكتري أسانيدي إن عنه وقارو صاري أحاديثي صحيحة عين قفكي مركا كتابك ستة كتابك أصل كي وين ولصعو كريا وغبا عرين وكتابك لدونتو كي مركا عن هيني انت عينو شرح إليك دوني دا الله صوعي وحي تعالى مطبعة برع بريت اللي هذا أيها لقيه لي إن شاء الله تعالى سؤال ده مركا يسوي الدين له الإمام البخاري رحمه الله تعالى وحي نشاقني إنه ألفي كتاب كي وصحابة بدنا كتبت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم محو كتاب كيسا ووسو أرويه ووشاقي أحاديث ضعيفة أيضا اللي أقول هاي أحاديث الضعيف كاهي إن أنا حجاء هاي محو أحاديث تأولي وكتاب كيسا ودحدقي سؤال شاس أياو باهن جواب باهن jawaabteedu si kooban waxaynu oran karaynaa waa laba qodob qodobka koowaad xadiiska daciifka ahi haddii dacfigiisu yar yahay in la wariyo iyo in lagu camal falo culimo badan baa ku tagtay xadiisku haddii uu daciif yahay ha yeeshee dacfigiisu aanu darayn oo dacfi khafiif oo xagga dabdiga كتعلق يهي علماء بدن أي قضاء إلا وري كريو لغنا عمل فلي كريو ساد رادت وحسور قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى إنه مذهب وآمن سنة وحديث كضعف يسوع هدو يسير هاي إلا وري كرو معناها لبعضنا ومعناها الشيخ الإمام أبو حاتم الرازي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
qodobka labaad jawaabu noqonayaa waxa weeye inay a'immadu raximahum allahu tacaala markay axaadiista daciifkaa sheegayaan ujeeddooyin kala duwan bay u sheegi jireen ujeeddooyinkaa waxaa ka mid ahaa lilmacrifati bihi in la ogaado in axaadiistan la wariyey oo waxa weeye riwaayaad la wariyey oo daciifa inay tahay waana jawaabta uu bixiyey alimaam abu xaatim araazi markii la weydiiyey layidhi ahlulxadiidi rubama rawow xadiidan laa asla lahu walaa yasix ahlulxadiidku waxaa laga yaabaa mararka qaarkood inay weriyaan axaadiid aan sugnayn oo asalba aan lahayn maxay sidaas ku dhacday wuxuu yidhi raximah اllahu tacaala culamaa'uhum yacrifuuna aلصaxiixa min aلsaqiim fariwaayatuhum alxadiid alwaahi lilmacrifa ahlulxadiidku way garanayaan ma aha dadkan aan aqoonta u lahayn asaaniidda iyo axaadiista ee waxa weeyaan ahlulcilmigu maadaama ay garanayaan oo ay kala sooci karayaan sidaa daraaddeed ayay waxa weeyaan ahlulcilmiga muxadisiintu ay axaadiista daciifka axyaanan u warin jireen waxaana daliil u ah alimaam sufyaan athawri raximah اllahu tacaala hadalkiisii uu yidhi inii la arwi alxadiida calى alaaثati anxaa saddex siyood baan xadiiska u wariyaa saddexdaa waxaa ka mida liacrifa bihi si aan u garto ama liyucrafa si loo garto marka labada qaradba waa loogu cudurdaari karaa alimaam albukhaari raximah اllahu tacaala kitaabkan waxa weeyaan 4 meelood meel ay tahay axaadiis aan sugnayn طabcan xadiiska kitaabkan aladab اlmufrad waa la sharaxay sharaxii ugu horeeyey baa la odhan karayaa ama ugu mashhuursan waa kitaabkan la yidhaahdo fadl اllahi الsamad fi tawdiix اladab اlmufrad kitaabkaas oo moxamed luqmaan asalafi uu sharaxay shiikha hindiga ahaa isaga ayaana ugu mashhuursan culimo kaloo isku dayda inay sharaxaan way jiraan sida cawn اlaxad الsamad sharxi اladab اlmufrad lisheikh moxamed lisheikh zayd ibn haadi almadkhali raximah اllahu tacaala culimo kaloo iyaguna isku dayda way jiraan laakiin kollayba kitaab si weyn oo mugle oo waafiya loo sharaxay sida alimaam almucallim raximah اllahu tacaala uu sheegayo ma aha alimaam almucallim raximah اllahu tacaala oo kitaabka ku leh muqadimo ku leh fadl اllahi الsamad ayaan doonaya insha allahu tacaala hadalkiisa inaynu tilmaamno uu ku caddaynayo musiibada muslimiinta haysataa inay tahay inay ka tageen aadaabtii iyo akhlaaqdii iyo ku dhaqankii shareecada sheikhu wuxuu yidhi raximah اllahu tacaala muqadimada fadl اllahi الsamad fi tawdiix اladab اlmufrad صafxadda 7-tobnaad mujalladka koowaad wuxuu yidhi way farabadiyeen in badan oo culammada shareecada aqoonta u leh iyo kuwa mukhlisiinta u ah shareecada alleh iyo diinta alleh inay caddeeyaan waxa muslimiinta ku dhacay ee liidasho ah ee in umamkii kale ay ku qoslaan oo ay liidaan ah oo ah inay iyagu ishoojiyaan oo midba midka kale uu hoojiyo iyo waxyaabaha intaa la midka ah ee hoosu dhaca iyo dibu socodka iyo fogaanshaha arrinkaasi inuu ku yimid fogaanshaha ay ka fog yihiin shareecada alleh sababteeduna ay tahay 3 arrimood midkood ay tahay ama 3daasoo wada dhammaystiran ta koowaad wuxuu yidhi iltibaasu maa laysa min addiin bima huwa minhu mushkiladda koowaad ee muslimiinta dhibka haystaa uu gaaray waxa weeye in waxaan diinta ka mid ahayn in waxa weeyaan lagu soo daro oo bidac lala yimaado waa meelaha ay musiibadu uga timid qodobka labaad ee dhibka u geystay waxa weeyaan dacfu اlyaqiin bima huwa min addiin inaanay liqinoo aaminin ama uu daciifay inay yaqiinsadaan wixii diinta waxa weeyaan ka mida ee sugan qodobka saddexaad waana ka ugu darane cadamu اlcamali biixkaami اddiin
inay diintii axkaamteedii ku camalfali waayaan taasina waa dhibka saddexaad ee xaaladdaa maanta ay ku sugan yihiin ee qof kastaaba uu arkayo dhibaatada haysatay iyo sida loo dullaystay iyo sida meel walba loogu dhibayo dhibku wuxuu ugu dhacay ma aha ilaahay inuu dulmiyayo ee waxa weeye inay la yimaadeen arrimaha uu shiikhu sheegay wuxuu kaloo shiikhu yidhi araa ana macrifata alaadaabi annabawiyati saxiixa waxaan arkaa buu yidhi barashada la baranayo aadaabta nebiga calayhi salaatu wasalaam ee weliba ka sugan nebiga calayhi salaatu wasalaam kuna saabsan cibaadaadka iyo qaabka loo cibaadaysanayo walmucaamalaat qaabka mucaamalaadka iyo loo ganacsanayo iyo waliqaamati waasafar marka la neg yahay iyo marka safarka lagu jiro aadaabtii ku timid iyo walmucaasharati walwuxda marka cid lala jooga iyo marka keli la yahay iyo walxarakati waasukuun marka la dhaqdhaqaaqayo iyo marka la xasiloon yahay iyo walyaqadati wannowm marka la hudayo marka la soo jeedo iyo walakli washurbi marka wax la cabayo iyo marka wax la cunayo iyo walkalaami wasamti marka la hadlayo iyo marka la aamusayo wagayri dalika iyo intaa waxaan ahayn garashada la gartaa mima yacridu lilinsaan ashyaadaas oo ah waxyaabaha qofka ku soo darinaya fii xayaatihi noloshiisa maca taxari alcamali iyadoo lala qabo in lagu dadaayayo in lagu camal falo biha axaadiista iyo aadaabta nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam kamaa yatayasar marba sidii qofka u fududaata arrinkaasi inuu yahay ayaan arkaa buu yidhi addawaa'u alwaxiid dawada keliya litilka alamraadi xanuunnada ummadda ku dhacay dawadeeda keliya waxa weeye in lagu camal falo axaadiista iyo aadaabta nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay wuxuu yidhi shiikhu faina kaiiran in badan oo min tilka alaadaabi aadaabta nebiga calayhi salaatu wasalaam ka mid ahi sahlun cala annafsi nafta way u fududahay yacnii wax adag oo qofka culays ku ah inuu sameeyo ma aha markaad wax cunayso sidaa wax u cun markaad wax cabayso sidaa wax u cab markaad seexanayso sidaa u seexo oo waxa weeye ducooyinka akhri markaad soo toosto wax nafta ku culus ma aha oo wax aad iyo aad u sahlan faidaa camila alinsaanu bimaa yashulu calayhi minha haddii haddaba qofku wixii u fududaaday aadaabtaa ka mida uu nafta baro inay samayso lam yalbath in shaa allah an yargaba fi lisdiyaad hadduu wax ka mida ku camal falo oo uu nafta baro waxa suuragal ah inay naftu darabto in loo sii kordhiyo facasaa an laa tamdi calayhi mudda ilaa waqad asbaxa qudwatan ligayrihi fii dalika hadduu sidaa sameeyo oo maalinba nafta uu baro aadaabta qaar ka mida oo marba uu sidaa u sii wado waxaa laga yaabaa muddo yar ka bacdi inuu noqdo qof dadkuba ku daydaan aadaabtiisu maadaama ay wanaagsan tahay oo qaabka uu soconayo qaabku u hadlayo qaabku u aamusayo qaabku u seexanayo qaabku u soo toosayo qaabkuu dadka wax uga iibsanayo qaabku wax u iibinayo haddii uu sidaa sameeyo oo nafta uu baro aadaabtan saxiixii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay inuu nafta baro ay la qabsato waxaa laga yaabaa wakhti yar gudihii inuu noqdo iska daa isagu inuu hagaagay inuu dadka u noqdo qof ay ku daydaan وبالاهتمام بذلك الهدي القويم والتخلق بذلك الخلق العظيم ولو إلى حد ما يستنير القلب وعود الشيخ إن حنون لقى بكتو ولقوا حنونه هدي قاوة سنة هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم إيه إن طبيعات لقى بكتو خلقا وين النبي محمد عليه الصلاة والسلام وقصف إسناء شيء يربى هالنقدين يعني wax yarbu kamida han noqdaaneen arinkaasi qalbiga ayaa ku nuuraya wayansarihu sadr laabtuna waasic bay ku noqonaysaa halaga yaab dad badan in laabtoodu ciriir ay ku suganta marka hadduu sidaa sameeyo aadaabta uu la yimaado waxa weeye wuxuu ka dhaxlayaa qalbiga waxa laabtiisa inay waasic noqoto watatma'innu an-nafs naftuna inay xasisho waxa ugu badan ee qof nimco u haysta waxa weeye naftiisu inay mutma'in tahay inay xasiloon tahay oo warwar iyo walbahaari iyo murugo iyo tiiraayo aanay hayn fayarsakhu alyaqiin wayaslixu alcamal maxaa ka dhalanayoo kale
yaqiintii qofkuu diintan ku qabay iyo aakhire iyo ballanta iyo yabooha alle uu ku qabay ayaa qalbigiisu ku raasakh noqonayaa ku waxa weeyaan si fiican ugu sugnaanaya camalkuna uu ku hagaagaya wuxuu الشيخ وإذا كثر السالكون في هذا السبيل لم تلبث تلك الأمراض أن تزول إن شاء الله هذه ضدتك سدع سمينيا آدابت النبي عليه الصلاة والسلام نفته ذا كدر قيه بريه كدق ما يهدي بتان وحكذا لنا حنوننا ما أنت أمضها يستاب إلي السولان باكد لنا إذا الشيخ وحي نوسو أروريي dhibaatada ina haysato haddaynu muslimiin nahay dhibka ina haystaa inta uu leegyahay iyo dhibkaasi dawadiisu siday u fududahay in badan baa laga yaabaa in shirar la qabto dadku isku mashquuliyaan waa dadka sideebaa loo hagaajiyaa mujtamaca sideebaa loo dooliyaa mujtamaca sideebaa loo hagaajiyaa dawadu waxay ku sugan tahay waa aadaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo akhlaaqdiisii iyo nuurkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu la yimi in ummadda lagu faafiyo ummaddu ay ku dhaqanto sheikhu wuxuu yidhi wa min absadi majmuucaati kutubi الsunna fi اladab الnabowi haddaba wuxuu yidhi kitaabka ugu waasacsan kutubta sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam laga alifay ee weliba ku saabsan aadaabtan aynu ka hadlayno ee aynu nidhi dawadu iyaday ku jirtaa kitaabka ugu waasacsan wuxuu yidhi waa kitaabu اladab اlmufrad waa kitaabkaaynu maanta insha allahu tacaala bilaabayno waa kitaabka la yidhaahdo aladab اlmufrad lilimaami moxamed ibni ismaaciil albukhaari raximah اllah shiikhaa la yidhahdo moxamed oo ina ismaaciila bukhaari magaalada la yidhahdana loo nisbeeyey allah u naxariistay kitaabkiisa weeye markaasuu shiikhiisii ammaano wuxuu yihi walimaamu اlbukhaariyu imaamu اlbukhaari shiikhaa la yidhaahdaana waa ka shamsi fii raabicati الnahaari shuhratan xagga caannimada waa qorax barqa joogtuu la mid yahay ma cid baa ka jaahil noqonaysa ma cid baan arkayn qoraxda samadaa taagan ee weliba barqada ku sugan sida ay u caanka u tahay ee cid waliba u garanayso ayuu la mid yahay wa ilaa mu'alafaatihi اlmuntaha fi اljawdati waالصixa kutubtiisa ayaanay ku dhammaystirantay xagga waxa weeyaan axaadiis la hubo oo laga shaqeeyey oo si fiican loo ilaaliyey oo weliba la doortay kutubtiisa ayay ku dhammaystiran tahay wa kitaabuhu haada kitaabkiisan adab اlmufrad ee aynu insha allahu tacaala maanta bilaabaynaana huwa bacdu kitaabihi aljaamic الصaxiix wuxuu yahay waa kitaabka ku xiga kutubta shiikhaasi alifay marka laga yimaado aljaamic الصaxiix أwlىa kutubihi بأن يعتني به من يريد اتباع السنة فإنه جمع فأوعى مع التحري والتوقي والتنبيه على الدقائق وحول الشيخ كتاب كيسا أيا أمضا إن حل إسكساره قفك الدولة إن السنة هي طريقة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وضاعه وأي الشيخ كتاب كوروري أحاديثتي آدابت قصاب سنة أو وحبا مضافل iyadoo lala qabo inuu weliba waxa weeyaan aad iyo aad u ilaaliyo iska hubsaday axaadiistani waxay yihiin iyo iyadoo weliba uu caddaynayo daqaa'iqda iyo waxyaabaha qarsoon ee waxa weeye aadaabtani ay wadato shiikhu wuxuu yidhi walaakina alumma lisuu'i xadiha qasarat fii xaqi hada alkitaab ummaddu ha yeeshee kitaabkan qiimihii uu lahaa lama dhigin booskii uu lahaa lama dhigin oo waynaga sheegnay sharaxa ugu horeeyey ee ama la odhan karayo waa sharaxa ugu macruufka ahi shiikha qoray qarnigii horuu noolaa sharaxa waxaynu tilmaamnay fadlullahi samad fii tawdiix اladab اlmufrad limuxamed ibn luqmaan الsalafi waxa weeyaan wuxuu ahaa sheikh la odhan karayo waa mucaasir oo qarnigii imika dhammaaday ayuu waxa weeyaan ayuu noolaa sheekh alalbani raximah اllahu tacaala hadalkaa mucallimi markii uu soo naqliyey wuxuu yidhi hada kalaamu jayidu matiin min rajuli khabiirin bihada اlcilmi الshariif wuxuu yidhi hadalkaasi waa hadal aad iyo aad u awood badan hadalkaa mucallimiya aynu akhrinay
sheekh cabdiraxmaan ibni yaxya almucallimi raximahullah oo isaguna culammadii qarnigii hore noolayd ah ilaahayna subxana wa tacala ha u naxariisto sheikh reer yamaneed ah laakiin maka degana makana ku dhintay oo sheikh diinta aad iyo aad ugu shaqeeyey gaar ahaan cilmiga xadiidka sheikhaas hadalkiisii markuu soo raray sheekh alalbani raximahullah oo isaguna sheikh dhowaan dhintay 2000 meelaha dhintay 1999kii xilliyadaa dhintay ilaahay ha u naxariistee oo isaguna runtii sunnada nebiga iyo axaadiista nebiga aad iyo aad ugu shaqeeyey ayaa markuu hadalkaas soo raday wuxuu leeyahay hadalkaas mucallimi waa hadal wanaagsan oo weliba aad iyo aad u awood badan hadal layska yidhi maaha waa hadal qiimaysan oo weliba uu yidhi nin aqoon u leh cilmiga xadiiska nebiga calayhi الsalaatu wasalaam weliba wayacrifu qadra kutubi الsunnati wa fadliha weliba wuxuu aqoon u leeyahay qiimaha ay leeyihiin kutubta sunnada nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ee laga alifay iyo wa ta'hiiraha fii tawxiidi اlumma iyo raadaynta ay ku leedahay haddii la qaato inay ummaddu midowdo noqoto ummadda muslimiintahay ummad ishaysata oo waxa weeyaan adag oo awood leh oo waxa weeyaan isu naxariisata oo horumar samaysa wuxuu yidhi shiikhu arrinkaa uu shiikhu sheegay ee ah dadku dhibaatadu waxay ugu dhacday inay tahay saddexdii qodob aynu sheegnay wuxuu yidhi haadaa huwa addawaa'u alwaxiid lima asaabaha min aldulli waalhawaan xanuunkaa uu sheegay ee uu shiikhu inoo fayday waa xanuunka dhabta ah ee ummaddan gaadhsiiyey inay noqdaan ummad liidata oo ummadaha kale hoos u eegaan kama qaala الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam nebigaana sii sheegay oo wuxuu yihi shiikhu xadiiska bni cumar radia allahu tacaala canhu uu nebigu tilmaamay ee uu yihi ida tabaayactum bilciina waakhadtum adnaaba albaqar waradiitum biالzarc wataraktum اljihaad sallط allahu calaykum dullan laa yanzicuhu xataa tarjicuu ilaa diinikum rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam xadiiskaa wuxuu inoogu khulaaseeyey xanuunka ummaddan haleeli doona iyo dawadu waxay tahay oo wuxuu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam markaa beeca iyo kala iibsiga ciinada loo yaqaano aad wax ku kala iibsataan waa nooc ka mida anwaacda muxaramka ee aanay bannaaneen in wax lagu kala iibsado laakiin wuxuu tusaale u yahay ma aha beeca keliye wuxuu tusaale u yahay markaad muxaramaadka iska dabaalataan yacni waa tusaale wuxuuna tusaale u yahay markaad xumaanta aad dabaalataan hee wa akhadtum adnaaba albaqar waradiitum bizarc ee aad iska raacdaan aad qabsataan waxa weeyaan lo-da dibkeeda aad qabsataan oo looga jeedo yani inaad beerihii iyo adduunyada inaad ka shaqaysaan iyo xoole adduunyo si aad ku heli lahaydeen iyo taasi ay hamigiinna noqoto waa tusaale iyaduna yani laakiin waxaa looga jeedaa markaad adduunyo ku mashquushaan ee aakhirada aad ilowdaan waa xanuun labaad wa taraktum اljihaad jihaadkii sharciga ahaayee ilaahay sharciyeeyey maaha dadka nunsani waxyaabaha ay jihaadka u yaqaanaan kaa kama hadlayno jihaadkii ilaahay sharciyeeyey markaad ka tagtaan isaguna wuxuu tusaale u yahay awaamirtii laydin faray markaad ka tagtaan ee aad qaadan weydaan saddexdaa xanuun markaad la timaadaan maxaa idinku dhacaya sallata allahu calaykum dullan ilaahay dulliguu idinku sallidaya dulligaana kama baxaysaan ilaa aad diintiinna u noqotaanoo saddexdan xanuun aad iska dawaysaan waxaan rajaynayaa marka insha allahu tacaala kitaabkani qiimahaasuu leeyahay inaynu insha allahu tacaala naftayda iyo cidda maqlaysaaba in ay ka faa'iidaysan doonaan oo nafta aynu ku dirqiyi doonno in sha allahu tacaala aadaabta nebiga ka sugnaatay calayhi الsalaatu wasalaam ee aynu akhriyi doono maalinba wixii ilaahay inoo qadaro in aynu isku dayno bal wixii aynu maalintaa maqalno inaynu nafteenna eegno oo wixii ay kaga sugan tahayna aynu ilaahay mahadinno hadday ka maqan tahayna inaynu ku dadaalno inaynu la nimaadno ujeeddada aynu kitaabkaa u dooranne u dhigaynaana waa inta waa inaynu camal u rogno
si aynu u hagaagno isbeddelkuna wuxuu ka dhashaa nafuhu ka dhashaa haddaan anigu hagaago adna aad hagaagto kaa kalena hagaago saddex guri baynu ka soo kala toosnay saddexdii guriba way hagaagayaan dabadeedna sidaasay u soconaysaa ilaa mujtamacuu ka wada hagaago intaas ayaynu insha allahu tacaala maanta ku joojinaynaa berri ayaynu kitaabka si toosa u bilaabi doonaa wallahu tacaala aclam wsala allahu wslama wbaarak calaa cabdihi warasuulihi muxamed